بسم الله الرحمن الرحيم شركة قلها وزيرة عادي أها مانتو صدق الله تنك نوفمبر لبكون يتضيطبا وحا قيبته هو شركة دوميني رئيس الوزراء كحجينك مهدي محمد قولت قدر قيبته دنبنا رئيس الوزراء حكومة فدرالية الصومالية مدن حسن علي قيره شركنا يا لغة الله رمى فربنا كمد هي أمنية حالة مرية وربحين كسابسن هول قلة السعودة iyo qorshayaasha u degsan wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga ee ku aadan xoreynta kooxaha al-shabaab kadib waxa warbixino laga dhageystay Axmed Caynte oo ah madaxa hay'adda xiriirka iyo deeqaha iyo Cabdi Diirshe oo ah agaasimaha guud ama xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta warbixinahaas oo ku aadan shirar muhiim ah oo dalka ka dhici doona 4 December iyo 5 December oo kan 4 December uu yahay shir ka amniga oo looga hadli doono shirkii London go'aanada ka soo baxay wixii ka qabsoomay oo ay imaanayaan dad heer sare ah oo caalami ah oo na shirku doomin doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shirkaas ayaa wuxuu qorshe u yahay dib u habeynta ciidamada howlgallada la rabo in maaragtay laga xoreeyo kooxaha argagixisada ah diyaar garowga ciidamada AMISOM sidii loo yareyn lahaa ciidamada dawladda federaalku ay ula wareegi lahayn amniga dalka iyo qorshayaasha u degsan dhanka amniga sidoo kale 5 December ayaa waxa ka dhici doona halkan shir heer sare ah oo loo yaqaan Somali Partnership Forum oo isagana shir runtii muhiim u ah horumarka dalka laguna qiimeyn doono qorshaha xukuumadda iyo sidii maaliyadda ganacsiga qorsheynta iyo dhammaan hay'adaha dawladdu ay uga shaqeyn lahaayeen si loo kobcin lahaa dhaqaalaha loo dardargelin lahaa in cashuuraha la qaado isla markaasna loo fulin lahaa mashaariic horumarineed marka labada shirba oo shirar muhiim ah ayaa warbixino laga dhageystay kadibna golaha wasiirada ayaa ka dooday waxaana la isla gartay ahamiyadda ay leedahay labadaas maalmood shirar ka dhici doona magaalada Muqdisho oo tusaysa in shirarkii caalamiga dibadaha ka dhici jiray loo soo raray magaalada Muqdisho ay ka dhacayaan sidoo kale ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka ayaa wuxuu warbixin ka siiyay golaha siyaasadda loo dhan yahay oo guddiga wasiirada hoosaadka ee arrimahaas u xil saaran wuxuuna ka codsaday la taliyaha ra'iisul wasaaraha Cumar Dhagey inuu warbixin kooban ka bixiyo xaaladda sida ay marayso sida loo doonayo in loo dhaqangeliyo federaalka dalka doorashooyinka iyo dib u eegista dastuurkaba dawladda federaalka waxa ka go'an in siyaasad loo dhan yahay lagu dhaqo lagu hago dalka si loo gaaro ahmiyadda la wada leeyahay ee ah hal cod iyo hal qof doorashooyin inay ka dhacaan dalka kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka maaliyadda Dr. Bayle warbixintaas oo runtii ku saabsaneed habka iyo nidaamka loo marayo maamulka iyo maareynta maaliyadda oo hay'adaha caalamiga bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ba iyo dawladda isla garteen oo ku aadan sidii loo dhameystiri lahaa maamul nidaam ah oo habaysan oo canshuurihii lagu kordhinayo dakhligii dawladda lagu kordhinayo isla markaana jaangoyntii loogu talagalay sidii ahayd in loo bixiyo oo ay ka mid ahayd miisaaniyaddii dhawaan la dhameystiray oo ay ka mid ahayd ansixintii golaha shacabka oo dhawaan ansixiyey in canshuuraha laga jari karo oo ahaa gunooyinka iyo arrimo badan oo loo arkay inay muhiim u tahay dhamaadka ka hor sanadkan in Soomaaliya ay rajaynayso in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay taasoo suuragelin karta in mashaariic horumarineed iyo lacago deymaha Soomaaliya la siiyo ra'iisul wasaaruhu oo shirka gadaal ka yimidna waxa uu sheegay ahmiyadda gaarka ay leedahay arrintan iyada wuxuuna ku amaanay wasaaradda maaliyadda sida ay uga dhabaysay in loo fuliyo dhammaan shuruudihii caalamka nagu xiray si ay noo sahlanaato waddankan in mashaariic horumarineed laga fuliyo kadib wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa laga dhageystay warbixin faahfaahsan ku aadan heshiiska xuquuqda carruurta oo 2015 la saxiixay kadibna caalamku hadda naga sugayo inaan warbixin labadii sano mar la bixiyo si warbixin oo dhameystiran loo helana wasiiradu waxay bilowday geedi socod oo dhammaan gobolada iyo dawlad goboleedyada lagu maray iyo gobolka Banaadir oo xog lagu soo ururinayo daraasadna lagu sameeyay xuquuqda carruurta iyo waxyaalaha caqabadaha jira iyo sidii caalamka aan uga codsan lahayn
dhibaatooyinkana haysta si xal loogu helo dowladda federaalka waxaa ka go'an in xuquuqda carruurta ay muhiim tahay in la dhowrana ay waajib tahay kadib ayaa golaha wasiiradu waxay warbixin ka dhageysteen wasiir ku-xigeenka dastuurka xuseen cabdi cilmi oo golaha u soo jeediyey in la buuxiyo xubin ka bannaanaatay guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo 5 xubnood ka kooban horeyna xubintii ugu jiri jirtay ee uu ahaa wasiirka hadda cadaaladda isla markaana loo baahday in la buuxiyo wasiirka dastuurka iyo wasiir ku-xigeenkaba dadaal dheer waxay u galeen in xubintaas sidii loo buuxin lahaa loo heli lahaa qof aqoon karti waayo aragnimo leh waxay ku guulaysteen inay soo gudbiyaan shakhsiga muumina sheekh cumar hore u soo noqotay wasiir ku-xigeen hore u soo noqotay xildhibaan aqoon-yahan ah runtiina loo arkay inay ahmiyad gaar u leedahay wasiirka wasiir ku-xigeenkaba waa tallaabo hore loo qaaday in 5taas xubnood mid ka mid ay dumar noqoto dumarkaas noqdayna ay noqoto muumina sheekh cumar oo runtii khibrad iyo waa aragnimo dheer leh ayagoo la eegay qodobka 134 ayaa maaragtay golaha wasiirada wuxuu ka codsaday wasiir ku-xigeenku in loo codeeyo si loo ansixiyo golahana si aqlabiyad leh oo wada ogol ah ayaa lagu ansixiyey shakhsigaasna muumina sheekh cumarna ay ka mid noqon doonto xubin guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ra-iisul wasaaraha ayaa isagana wuxuu ka bixiyey warbixin safarkii baydhabo ku tegey oo runtii aad ugu ammaanay sida soo dhoweynta kulamadii shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada iyo ardayda uu la yeeshayna oo runtii ah mid dhiirigeliyey sheegayna in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u ooman yihiin dowladnimo iyo nidaam isla markaana uu ballan qaaday in wadada isku xirta baydhabo iyo muqdishona si degdeg loo furo si shacabka tabashadooda loo dhageysto isla markaana loo helo in muxuu ahaa dhaqaaluhu horumar gaaro dhalinyaradu shaqo abuur u noqoto wuxuuna ballan qaaday in waddanka siyaasadda dowladda ay tahay in gobollada la gaaro golaha wasiiradu tagaan in muxuu ahaa la isku xiro dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ugu dambeyntii mudan yuusuf garaad oo wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka warbixiyey safar uu ku tegay Washington oo ku aadanaa shir ay yeelanayeen wadamada Afrika 37 ka mid ah iyo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka shirkaas oo aad ugu tilmaamay inuu ahaa mid ahmiyad gaar u leh sidii xiriirka Afrika iyo dowladda Mareykanka loo xoojin lahaa gaar ahaan dhanka kobaca maaliyadda iyo ganacsiga wuxuu sheegay in halkaas uu kula kulmay dhigiisa dalka Rwanda isla markaana isla afgarteen in muxuu ahaa dowladda Rwanda ay aad u daneynayso in Soomaaliya iyo Rwanda xiriirkoodii la hagaajiyo ra-iisul wasaaruhu wuxuu aad u cadeeyay in mar uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Rwanda kulamadii uu dibadaha u tagay in uu aad u daneynayo in Soomaaliya iyo xiriirka Rwanda la hagaajiyo waxaan la isku raacay in Rwanda ay tahay waddan aan wax badan ka baran karno dhibaatadiina soo martay mid ka daran ay martay haddana dhaqaalahoodu aad u sarreeyo intaas ayuu ku koobnaa shirkii golaha wasiirada aad iyo aad u mahadsantihiin